waxaan idaacadda kulmiye iyo idaacadaha kaleeto oo muqdisho u sheegaya oo u xaqiijinaya warkaasi inuu been yahay sal iyo raadna uusan lahayn cid la shirtay oo u yeertay dadka gobolada koonfureed ka soo jeedaana haba yaraatee aysan jirin meeshaan dadka gobolada koonfureed ka soo jeedaa waa dadka ugu badan oo ka ganacsada oo dukaamada ku haysta oo dhismaha ka shaqeeya oo haddii ilaahay kuu roon yahay hoteelada iyo meelaha dadku bulshadu ugu badan tahay ka shaqaysta cid oran karta gobolkan ka taga oo goboladiinii ku noqdana ma jirto dawlad iyo maamulna ma oran shicibna maba oran karo oo waa dembi qofka Soomaaliga ahi wuxuu ka shaqaysan karaa oo u dhashay goboladan dhexe Kismaayo wuxuu ka shaqaysan karaa Baydhabo wuxuu ka shaqaysan karaa Banaadir ka gobolada u dhashayna wuxuu ka shaqaysan karaa Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo iyo Boosaaso ma garad waa gartay qof dalkan kaligi ma jiro hase ahaatee qofka dadka wararka sheegay waa dad ku tiri ku teen iyo been sheegay qofku hadduu dambi galo gobol kasta ka soo jeeday isaga shakhsiga ah dambiga lagula xisaabtamaya waa gartay ma jirtaa marka in marna uu kulan uu idin dhaxmaray oo aad ka shirteen qaabkii amniga aad uga wada shaqay lahaydeen waa jirtaa mararka inta badan waxaan u sameynay dadka ma garanaysaa shaqaalaha ah noocyo kasta ah waxaan u sameynay dad waxa jira horjoogayaala dad waxa jira dadku wuxuu isugu xiran yahay oo maaragtay wuxuu isugu xiran yahay hadii alla ku roon yahay deegaan jaaliyad iyo wuxuu isugu xiran yahay ay guryaha ku wada degaan ay ku sheekaystaan hadii ilaahay ku roon yahay isu dabeecad yaqaanaan waa gartay marka amniga waa ka sheekaysanaa in amnigu uusan gorgortan lahayn amniga cidii wax aragta ay soo sheegto dadka maaragtay maxaan ku raadaay iyaga dadku is yaqaan ma ogta waa fahmay shalay galab ma dhacay marka kulan ku saabsan qaabka aad u wada shaqay lahaydeen iyo dadka ka imaanaya shalay galab ma dhicin laakiin marar uu dhici jiray waa ay jirtay in amniga si wadara looga sheekaysto gobolada koonfureed kaliyana ma ahayn waa dadka magaalada jooga dhan waxaa loo yeerayaa ganacsatada waxaa loo yeerayaa ururka dhalinyarada waxaa loo yeerayaa ka haweenka waxaa loo yeerayaa ciidamada amniga ka shaqeeya qaybahooda kala duwan dadka sheegayso koonfurta de mujtamacaasay ka mid yihiin Soomaa aadan ku fahmay waxa jirta in dadka gobolada koonfureed ka soo jeeda saameyn iyo baqadin uu ku yeeshay ninkii al-shabaab ka tirsanaa ee maamulka galmudug uu ku guuleystay inuu qabto intii uusan isqarxin ka hor arintaas sideed ula macaamisheen waxaan ula macaamilay walaal ninkaasi waa xiran yahay kiis cad oo de meel fagaara abuna ku eedeysan yahay ninka la xiranina waxa weeye nin gobolada dhexe ka soo jeeda gaar ahaan degmada Burceel ka soo jeeda weeye ma garad waa gartay nin gobolada koonfureed ka soo jeeda lama xirna loomana qabanin ninka ay wada shaqaynayeen oo alaabta u keenay oo ku soo degay oo meesha xafladu ka socotay u soo saamiyay waa nin reer Burceel waana la hayaa labadoodaas kaliya u xiran baaristi kiiskana waa socotaa xitaa waxaa jira rag lagu daba jiro oo ka soo jeeda goboladan dhexe oo gacan ka geystay oo hadda lagu daba jiro dhinacaas iyo u baxay waqooyiga galguduud ma garatay waa gartay dadkaas ilaa iyo hadda maxaad hawla oo aad u gasheen qaabkaad usoo qaban lahaydeen dadkaas waa lagu daba jiraa meelo waxay tageen tuulooyin oo miyi marka waxaa loo dirayaa ciidamada oo hababka u tababaran loo soo qabtay dadka dambiilayaasha hadday dambiga ka qayb qaateen waa lagu cadeeyana waa lagu maxkamadeynayaa laakiin shay loo soo qaban lahaa waa lagu tala jiraa waa gartay magaalada Dhuusamareeb hadda waxaad bilowdeen qaabab cusub oo aad doonaysaa inaad amniga ku xaqiijisaan haday aan lahayd soo gelida dadka magaalada ku cusub iyo in iyagana laga warqabo arintaas sidee u jirtaa wallahi magaalada tani waa magaalo caasimada ma garatay hadalka in la bedelaana ma fiicna magaalada waa magaalo caasimada waa caasimada dawlad goboleedka Galmudug qof oran kara dad cusub baan controlaya laba checkpoint midna wuxuu yaalaa dhinaca wadada cadaada ka timaada dhinacna midna wuxuu yaalaa maxaan ku yiraahdaa checkpointiga dhinaca Burceel labada checkpoint baa baabuurta baara dadka wax weydiiya qof haatan inta iyo controlka lagu laarana ma jira dadku waa Soomaali qofkii wax qalada ama lagu arka ama la garan waayo waa jirta dadka qaarkii la yiraahdo miinkan hadii la garan waayo la yiraahdo xagee ka timid oo warkiisa israaftaaf laga gato si aad ku ashitay dambi baarista wax qaab cusub oo ka duwan ma jiro